السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشينا كحرن جوحة وركا تيوب مقالة عاصمة داي مقدشو حالة مصيبة أي لحظة كجشي وحنا موقضة إن مقالة مقدشو ضد ميدad كودي لهلي ضد كل ميدad كود لبادي جوبيو ضد كوجودونسن جريو يجوبا كلو أي كشقينيين تن إيه حلينا كدي بروب حوجن أو حليلي جوبيه أي جوجين waxa ay dalbanayaan in si degdeg ah loogu soo gurmado oo xaaladoodu qatar weyn ay ku jirto xaalka magaalada Muqdisho qayb kamid ah ayaa sidaan ah muuqaalka wiis waxa rabnaa in aan isku tusno sida uu yeelay ama uu baxsaday howlkani waxaad aragtaan jidadkii oo ku dhow qaarkood inay qaraxaan halkan maxatri halkan meesha cunugan uu maqan xalay toole aniga asaasi socone laamiga soo bugoyay sideen biyaha hirna soo qaaday meeshaan uu soo garaacay laamiga kor u qaadnaa ana xataa hoosta gale marka cunugii ana gacanta ka hayay barnaamijkan ayaan ku eegeynaa meydka canug yar oo hadda laga baadigoobayo agagaarka isgoyska Zoobe ee magaalada caasimadda ee Muqdisho laba qofood oo kale ayaa geeriyooday iyaguna dad kale oo dhaawacyo qaba ayaa jira magaalada Muqdishona wadooyinkii muhiimka ahaa roobabka ayaa jiray oo meelaha qaar waxa la isleeyahay dhul gariir miyaa ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho dadkeedu waa canshuur bixiyaal guri hadii aad dhisanayso canshuur baa laga qaadayaa haddii wax yar gurigaaga aad ka bedelayso canshuur baa laga qaadayaa haddana reer Muqdisho ma helaan canshuurta ay bixiyaan soo celinteeda iyo wali wax loo qabanayo magaalada Muqdisho waxa hadda hogaamiye Maxamed Amiir oo aan ka soo shaqeeyay dawladda hoose ee UK ninkan waxa aad loogu maleynayay in Muqdisho bilo kooban gudahood oo wax badan uga bedeli karo laakiin waxa la leeyahay ninkan wili kuma guuleysan in magaalada Muqdisho uu wax ka bedelo ciyaal xamar maanta aad bay u murugaysan yihiin magaalada Muqdisho xalay waxaan arkaynay baabuur dhulka uu la go'ayo bullet proof ka qayb uu ka yahay laamiyada waxaan aragnay baabuur dadka rayidka isticmaalaan BL ka oo sidoo kale wadooyinka ay la go'een wiil hadlay ayaan aad uga murugooday oo leh wiil ayaan shaqo ka imaanay lambar 4 ayaan ka imaanay waxaan u soconay Madiina wiilkii gacanta ayaan ka waday biyo ayaan naga xog badiyay sidaas ayaa biyo ku qaadeen god ayuu ku dhacay aniga xataa laamiga ayaan ka hoos maray waan soo badbaadiyay oo dhaawac ayaa gaaray marka magaalada Muqdisho waxa ku geeriyooday hooyo iyo gabar ay habar yar u tahay oo guri ku jiray guri ka sareeyay oo isaguna ahaa dhagax ayaa ku soo dumay halkaas ayayna ku geeriyoodeen dhacdadana waxay ka dhacday degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho dadka aqoon-yahanka ah ee naqshadeynta caasimadda yaqaan waxay leeyihiin naqshadeynta Muqdisho wax badan ayaa ka qaldan habka loo deegaameystayna magaalada Muqdisho hadii aan la bedelin culayska jira meesha kama bixi doono 30 sano ee dawlad la'aanta la ahaa waxa muuqatay daawadayaal in la dhistay goobihii biyuhu ay mari lahaayeen in la dhistay goobihii dadweynuhu ay mari lahaayeen in la dhistay goobihii wadooyinka nafis lagu siin lahaa oo wadooyin waaweyn ah dabcan lagu dhaxmarsiin lahaa caasimadda salahan Nairobi hadii aad tagto ama Addis Ababa hadii aad tagto ama Uganda hadii aad tagto wadooyin highways ayaa jira oo saddex baabuurna ay sidan u sii socoto saddex baabuurna ay sidan u soo socdo kuwa ugu yar kuwa kale waa ay ka sii badan yihiin laakiin magaalada Muqdisho wadada Makka al-Mukarrama ayaa uga casrisan hal gaari oo sidan u sii socda iyo hal gaari oo sidan isku sii socda mooyee gawaari kale oo halkaas ku dhaafi karta malaha oo highway caasimadda malaha meelihii biyaha ay mari jireen waa la deegaameystay oo guriga laga dhistay ciriiri badan ayaa Muqdisho ka jira sida dadka injineerada ay qabaan reer Muqdisho markasta oo uu da'o roob waxay ka cawdaan biyo wasaq ah iyo waxyaabo badan biyahan meesha mari lahaayeen dadkii ayaa degan horta qof oo gal in gurigiisa laga dumiyana ma jirto oo dawladii qabiil ay ku dhisan tahay qof uu booc dhigi kara malaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa sidoo kale ceeb weyn ay ka taagan tahay daawadayaal garoonka aadan cadde ee magaalada caasimadda ee Muqdisho xalay suuliyadii garoonka ayaa ku soo fatahay garoonka dhexdiisa qaybtii runway-ga qaybtii dadka ay diyaaradda ku sugayeen ee lagu siinaysanayay ceeb weyn ayaa ka taagan garoonka aadan cadde shirkad lagu magacaabo Favori ayaa gacanta ku haysa oo Turkidu ay leeyihiin in muddo ay shirkadan gacanta ku haysay magaceeda kuguma cusba shirkadan marka waxa la leeyahay daawade shirkadan waxa la leeyahay inay garoonka wax ku soo kordhisay iska daayay garoonka ay sii dumisaaba garoonka kuleel ayaa la joogi waayay toddobaadkii aan ka soo gudubnay waxa la damiyaa eesiyada marka madaxda dawladda Soomaaliya ka tirsan ay meesha ka dhoofayaan waa la daaraa
sida dad goobjoogayaal ay sheegeen inay garoonka ballaariso inay garoonka qorxiso in garoonka ay casri ka dhigtaan shirkadan inay ujeedaba looma malaynayo dadka Soomaaliyeed ee shirkadan u shaqeeyana dhibaato badan ayaa lagu hayaa marka Turkidu waa walaalo sax ah oo Soomaaliya ay leeyihiin haddana dhibaato badan ay Soomaaliya ka wadaan oo dadka Soomaaliyeed intooda badan Turkida iyo qaabka ay wax u wadaan kuma qanacsana haddaba daawadayaal magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo qaabka ay wax uga socdaan baan isla fiirinaynaa iyo waliba guud ahaanba marka aan fiirino waxa hadda laga filan karo magaalada Muqdisho maadaama hadda meyd la baadigoobayo meydad kale ay jiraan hooyo iyo gabadheeda oo iyaguna geeriyooday Allah u naxariistee sidoo kale ay jiraan dad dhaawacyo qaba dad ku hanti beelay baabuur wali godad ku dhacay oo magaalada caasimadda ee Muqdisho iyaguna wadooyinkooda lagu arkayo kuwaasi oo la leeyahay dadkii lahaa naftooda ay badbaadsadeen oo sidaas ay goobta uga carareen haddaba daawadayaal xaaladda ayaa halkan maxaa tiri halkan meesha cunugaan ugu maqan xalay toole aniga asaa isa socne laamiga soo bugooya isdheen biyaha hirna soo qaaday meeshaana nagu soo garaacay laamiga kor u qaadnaa ana xataa hoosta gale marka cunugii anaga gacanta ka hayay cunugii soo wada hirkiya zaid u socday mawjada gacanteeda ka degay ana xataa garaafa ay u gaartay hagaag saaxiibayaal waxaan idin kala soo hadlayaa bartanka caasimadda gaar ahaan isgoyska laamiyaraha Soobe halkan aan taaganahay oo dhulku uu go'ay sidaad arki kartaan sida goob dhul gariir ka dhacay waxaa la sheegay in ilmo yar ay ku maqan yihiin oo tan iyo xalay halkan laga baadigoobayo kadib markii uu dhulku go'ay halkan ninkaan odaga ayaa ila taagan salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu halkan maxaa tiri halkan meesha cunugaan ugu maqan xalay toole aniga asaa isa socne laamiga soo bugooya isdheen biyaha hirna soo qaaday meeshaana nagu soo garaacay laamiga kor u qaadnaa ana xataa hoosta gale biyihii maadaama uu badnaa hadda waxaa isleenahay biyaha haddaa markaa badnaa gudaha soo dhex gale hadda biyaha markoo yaraad laamiga markoo dega ama cunug ku kordegay oo kasoo bixi waa uu ku cashan yahay isleeyahay oo ku jira ilaa iyo hadda marka meeqa saac ma leeyahay xalaalka markay dhacdaas dhacayso 2 saac ilaa iyo 2 saac iyo bar meelahaas ay ahayd xagee ka timaadeen idinku markaas aniga waxaa ka imaan lambar 4 ka shaqeynayne madiina u sii hooyadeene xagga goonayne oo albaabkaas oo waxa la October 14 October aan goonayne marka uu kidayna meesha ka raacnaa marka uu sii socone marka cunugii anaga gacanta ka hayay cunugii soo wada hirkiya zaid u socday mawjada gacanteeda ka degay ana xataa garaafa ay u gaartay nadoo ilaahay ku rooyahay meesha labadeena meesha ku kala baxsan hirkiyana kala go'aaniyaas marwo fertility center xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka nagu dooro daaweyn qaliin iyo bacriminta IVF waxaan kula jirnaa ilaa aan dhabta kuu saarno ubad ilaahay idankii marka hadda ilaa iyo imika nolol geeri mid kuma haystaan labadaba mid ku hayna malahan waxna caawi meeshan oo hadoo nagu jirno xaqiijarbne kidayna meesha ka raacnaa marka uu sii socone haddaba reer Muqdisho aan u duceyno meydkaas la leeyahayna ilaahay inuu sahlo hooyada iyo gabadheeda dhimatayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala in uu iyaguna ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannadiisa firdawsa geeyo dhacdo kale oo xanuun badan ayaa iyaduna jirta oo dadkan muuqaalkan iska soo duubay iyaguna gurmad ay dalbanayaan aan sheer gareena muuqaalkan gobolka Banaadirna aan gaarsiino waa laba qof oo laba dhinac ku kala go'doonsan oo xaaladooda ilaahay uu og yahay tan iyo xalayna halis ugu jira in noloshooda ay waayaan gudaha Muqdisho odagaas iyo wiilkaas waxay ku go'doonsan yihiin meeshaas anagana meeshaan ku go'doonsanahay hawa wax gurmad oo degdeg ah oo gobolka Banaadir oo aan hayna ma lahan xalay ilaa hadda telefoonadii qaar waa naga qabanaa qaarna waxa waaye ma la qabanayo dhibaatadaas baa jirto odagaas hadda badbaado u baahan yahay meeshaas meel god ah oo iskuul ah waa duntay darbiyadan dhan waa dumeen marka dadkan gargaar u baahan yihiin hadii wax ka qaban kartaa la gaarsiin insha Allah magaalada Muqdisho dadkeeda badbaadaan u rajeyneynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhanna badbaada ayaan u rajeyneynaa aan u wada duceyno qaybta commentiga aan ugu duceyno qalbiga aan uga duceyno salaada marka aan tukano ummadda Soomaaliyeed oo dhan aan u duceyno muuqaalkan halkan ayaan ku soo koobayaa runtii waa maalin aad u xanuun badan tiiraanyadana waa la qaybsanaynaa qoysaskii tacsidu ay gashay meydkan la leeyahay ilaahay uu soo saqiro oo meel gaaban uu dadka ka tuso ayaan u rajeyneynaa muuqaalkan kan xiga intaan guuxa wararka tiyub dib ugu kulmi doono nabadgelyo daawadayaal